بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wax badan oo wixii aan dhehi lahay culimadii iyo wasiirka iyo dhammaan madaxdii halkan ka hadashay ayaa tiri oo ku saabsanay waxa ku haboon in meeshan laga yiraahdo khayr badan Allah idin siiyo maasantiin meeshii wasiirku ku soo gabagabayaan ka bilaabaya tacsiida Sheekh Usmaan samir iimaan Allah naga wada siiyo isagana jannadii firdawsi Allah ka waraabiyo macnaha ummadda Soomaaliyeed ugu fadhiyay iyo diinta islaamka fidinteeda iyo hagaajinteedana waa laga wada marqaati kacay ilaahay ajr xasanaada oo soo koobi karin qabrigiisa Allah ku siiyo sheekha iyo tacsidiisa waa inta kadib mar kale sida looga wada mahad celiyo ayaan anna ku beerinaya codkayga culimada Soomaaliyeed meel kasta dalka iyo dibadiisa isaga timiday u timiday in ay ummadan Soomaaliyeed iyo diintooda islaamkaba ay u hagaajiyaan u toosiyaan oo meelihii ay gaabis ka jiro ay la isu sheego oo la hagaajiyo walaalayaal waxaan rabaa culimo Allah inaan halkan aan idinka xasuusiyo dhawaan waxaa la sameeyay daraasadaas oo ka hadlaysa yani khataraha ummadan Soomaaliyeed iyo dalkeeda haysta oo ay tahay dawladdu inay khatarahaasi ay barnaamijyo iyo siyaasad iyo maxaan ku raah wax qabad saxaya hagaajinaya ka badbaadinaya ummadan khatarahaasi ay la timaado dawladda ayay ahayd si loogu saleeyo yani wax qabadka iyo talaabooyinka iyo qorshayaasha dawladdu ay muxuu ahay dejinayso inay noqdaan kuwa ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeedaba ka badbaadinaya iyo dadkeeda iyo diinteedaba ka badbaadinaya khatarahaasi waa badnaayeen lix hal lagu soo koobay inta wax badan la soo dirsay lixdii marka inaan soo wada qaado ma rabo in badan oo kamidana meeshaanaba looga hadlayo midnimada iyo wadajirka waxa ay kamid yihiin faraaruqa laakiin waxaan rabaa inaan sheego hal qodob oo aad iyo aad muhiim ah waxa la yiraahdo qatara waxa kamid ah hayguurka yani ummadani wixii ay lahayd hadda ka horna halkan iyo meelo badanna waa tan ka sheegnay oo dhahnay dawladuhu laba si u sameysmaan mid kamid oo annaga oo leenahay waxay tahay waxa sameeysta ummad wax walba kamidaysan oo leh waxa ay u gaara ayada dawladna u sameeysta inay waxaasi u ilaaliso ay kamidaysan yihiin ummadda ay leedahay wixii maanta halka lagu celceliyo culimadii muxuu ahaa qiimaha badneed ee sheegtay oo ahayday ummad mida inaan nahay oo يعني dhalasho ahaan iyo jiritaan ahaan isir ahaan aan mid u nahay diin ahaan aan mid u nahay madhab ahaan aan mid u nahay luqadii iyo dhaqankii suubanaa iyo wixii oo dhan inaan mid ka nahay dawladdu mas'uuliyadda koobaad oo saaran waxay tahay inay ilaaliso waxaas ay dadku ay leeyihiin oo aan loo keenin oo aan soo iibsanin oo iskuul aan lagu soo barin ee maxaa wanaaga ay yani lahaayeen dhaxal u leeyihiin in loo ilaaliyo diintu waa midda ugu horeyso ugu muhiimsan laakiin diinta siyaabo badana yaa iyada lafsadeeda khataro badan iyo culeysyo badan iyo meelo badan oo laga soo galgalay ay leedahay ummadda Soomaaliyeed waxa ugu weyn ay ku midaysan tahay waa diinta islaamka marka qofku inuu qaybiyo rabaahe qabiil kuma qaybi karo ummadda laana qabiil kuma midaysan marka horeba reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel aan kalana يعني deegaan kuma midaysan oo midna geeskaas dalku deegaan mid geeska kale u deegaan mid waa beeraley mid waa xoololey mid labadu isku yahay mid waa ganacsade masaalixdaasna nalaguma qaybi karo laana marka hore aan ku kala qaybsanahay oo isku mid ka ahayn waxa aan ku kala qaybsanayn waa diinta kuma qaybsanin marka ummadda ninka inuu qaybiyo rabaahay waxa ay ku midaysantahay ku qaybi karaa waxay awalba ku kala qaybsaneen kuma qaybin karo marka waa sababta nimankan khawaarijta ah inta wixii daraaseeyeen dhinac walba Soomaali u fiiriyeen ayay dheen meeshaan laga gali karaa ayaga iyo cadawga ka dambeeya iyo cadawga maxaan ku iraahday ay wataanba waxay arkeen meeshaan hadii ummadda lagu kala tagsiyo lagu kala qaybiyo sidoo kale kuwa yowga jiritaanka iyo midnimada iyo wanaagan ummaddu ay leedahay ay dhibayso dhan ayagana dariiqa ay ka soo galaan meesha sidaas daraadeed ayaa diinta ay u tahay arin aad iyo aad muhiim u ah حرا ولا ريال سياسة دوت أركتين سياسة دو أفكار واللي بدأت عادي رجل عادي يعني علي محمد جيس كاس دقر أي أنت السحذين أي كل رياضين أي لي ما ذين واي مد ما هاكر تمرك
ولو كل رأي دوية وحزبية الله سماه أصابت وحل أقولها إن لو كل رأي دوان هذا وابلغ على السياسة هذه هالرأي نقطة حوجة وحل الأمر بدبات كان تايو وعلى قال لحدا لكن دينت من السياسة مركا حرب وحيابها أو سياسة أساس أو لو كل رأي دوية أو لو كل أرتي دوية أو لو كل محو حزبية لك ليهاي لكن كاسي إن أنا دين تكدح مقنن oo aan diinta lagu kala qaybsamin oo lagu xisbiya lagu kala noqonin oo lagu ilaa ma kala qaybsanaantaasi sal ma laha kala siyaasaddu kala qaybsanaanteeda sal waa man waa qof wax qof sameeyay oo qof ku fikiray oo qof ku riyoodo la soo kacay waayo masaalixdiisa masaalix degaan iyo masaalix mid hadda ugu weydaan masaalix ummadeed oo u arkay waayo laakiin diinta inta ma aha marka cabsiya ku galay markaad aragto waxyaabihii iyo qaabaalkii iyo lagu kala qaybsanaay ee fikirka siyaasiga ah iyo hadalladiisii iyo luqadii markaad diinta ku dhex aragto oo culimada ku dhex aragto oo maxaan ku iraahday xoogaa cabsiya ku galay waxaad leedahay war heer see wax naga yihiin culimada Soomaaliyeed qolkan yarka kuma soo dhamaa karto ma wada imaa karto meeshaan inta soo wada fariisato ma imaa karto qol iyo qolal iyo maxaan ku iraahdaa deegaan kooban xataa kuma ekaa karto ilaaha badiyay waana waxa ay macnaha ku leeyihiin meel kasta oo ummad Soomaaliyeed ay joogtaa dal iyo dibadba wadaad Soomaaliyeed jooga dibadda daan tagnay waata waa joognaa culimadii waa joogtaa dadka ummadii horseedaysa waata masaajidda dhisayso meelaan weligeed masaajidda laga dhisin waata aadaankii iyo maxaan ku iraahdaa oogaysa ayadoo meelaan weligeed muxuu ahay inta dunidaba ay soo jirtay aan maxaan ku iraahdaa aadaan laga maqalo laga oogin waa Soomaalinimada iyo culimada iyo diinta waa isla socdaan kalama haraan sidaas daraadeed culimadii aan maqan hadduu hadda maanta ninku doodo waa run culimada waa maqan tahay ilaa ilaahaba ka weynay wal xalqul ku soo koobi kara oo hal meel isugu imaan kara siyaasadda marka dhaqanka meeshaas maxay iyo iskala lahayd siyaasadda waa ogtiin intaan soo marnay looma dhama wax la yiraahan qabnaa waxaan looma dhama consensus ma laha muxuu ahay magaciisi ma laha waxaasi waa ma aha yani fikir diini waa fikir yani qof leeyahay oo leeyahnina isku maatankaanu wax ka dhax arkaa marka meelahaas uu la aadaa ama in isku maatankan looga ra'yi badan yahay looga xoog badan yahay arkaa ama isku maatankan jamaacadiisi siyaasiga isla ahaayeen xisbiga isla lahaayeen oo ama reer hebel isku ahaayeen oo meesha ka weynaa marka inuu meelahaas aado waxaan rajaynaynaa culimadu in ay aad iyo aad uga daawoobaan waxaas markay arkaan ay u fahmaan waxaas asalka iyo aahaarta ay leeyihiin inay maxaan ku iraahdaa ay sidaa tahay marka waxaan ku dadaalnay dowladda Soomaaliya wax kasta oo diinta waa joogtaa waa nooshahay annaga hadda ilaaladeeda iyo amaanadeeda iyo xifdinteedana ilaahay aaba ballan qaaday oo meelay taallaaye laakiin wax badanaa baryahan yaa daboolay oo muhiimada ka yeeshay oo dadku ay ka danayn og yihiin oo ka soo hormaray in dib loo celiyo oo diintu inay tahay midda ugu horeyso culimada inay badato inay midaysnaato waxaasoo dhan aysan u yihiin waana waxa hadda wasiirka uu ka warbixiyey macadkii in dib loo furay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed la raaciyay shahaadooyin muctarif oo la aqoonsan yahay oo helayo dabcan ficliyan waa hadda uu dhaqan galay oo daraasaadkii bilowday laakiin wasiirro badan oo wasaaradda soo maray oo muxuu ahay Sheekh Baghdadi oo ka mid yahay ayaa macadkan in dib loo furo waqti badan juhdi badan geliyay laakiin ilaahay maalintuu qadaray inuu hana qaado shaqo qaada ayaa zamanka ama waqtiga noqotay nasiibkiisa ilaahay ka dhigay muxuu ahay wasiir Mukhtaar marka laakiin waa lagu soo dadaalay dadkuna waa ku wada taagneed weligeed in la waxayo si marka midnimada meeshaas ku taala ee Soomaali mid ah loo helo mashiinka ugu horeeya ee inta dhaqaajiya keeni kara midnimadaasi waxa waaye culimada Soomaaliyeed waaye dadka wata title-ka ama magaca iyo maxaan ku rahaa maqaamka midnimada Soomaalida maxay dhihi jirtay
gacmo daahir ahaa wax daahiriya dad horta ayagu midaysan ayaa wax miday kara culimada waxaan mar walba ku celcelinaynaa midnimada haddaatay muxuu ahay sheekh Faadumo khayr allah si halkan ka sheegtay yani waxa lagu kala duwanaan karo laakiin kala duwanaanshuhu macnaheedu maaha in lagu kala tago maaha kala duwanaanshuhu macnaheedu ma meel aan lagu kala duwanaan karin ay jiro waana la sheegay laguma kala duwanaan karo waxa ka soo haraahay waa fikirkana dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam alla weydiinayo dhahay waxaan fikir miya mise waxay yaa rasuulullah fikir waa markuu yirina muxuu ahay fikir kala yaa la barbar dhiganay marka aniga haddaan ku doodo fikirkayga fikir lama barbar dhiga karo waxaan aniga ilaaha unbaa wax ah haddee meesha ay ka galaysa caqiidada iyo waxdaaniyada ilaahay iyo waxaas culimada garanayso oo aan rabaa inaan muxuu ahay aan u daayo waqtigu aad iyo aad uu noo kooban yahay waqtiga salaadana waa nahayaa culimo alla waxaan rabaa in aad iyo aad loo xoojiyo midnimada culimada si loo helo midnimada ummadda waxaan culamaa udiinka ka codsanaynaa inay garab istaagaan dowladda oo ay maciin u noqdaan ilaalinta adkaynta iyo ku dhaqanka diinta islaamka waxaa kaloon ka codsanayaa in la labalaabo kaalintooda ku aadan dabargoynta khawaarijta iyo ka hortegidda afkaarta xagjirnimada ah korna u qaadaan doorkooda wacyigelinta ummadda wax badanaa ummadda in laga wacyigeliyo u baahan laakiin waxaan u baahannahay waxa ummadda laga wada wacyigelinaya lafsadooda siday u kala muhiimsan yihiin siday u kala culus yihiin iyo siday taahiir ugu leeyihiin ummadda iyo midnimadeeda iyo maxaan ku raha kor u qaadista wacyigooda iyo aqoontooda in culimmadu ay u kala hortamin u kala siiyaan u kala waxeeyaan ummadda soomaaliyeed maanta kuliyaat ulkhamsadi haddaata uu sheekh ka hadlay in badan oo ka mid a ayaa dayacan dhibaata ka jirta diinta islaamka iyo arkaanteeda iyo qawaacid waxa dhan oo waa wada muhiim mid oo muhiimadooda ay yar tahay oo yaan la sheegin la leeyahay ma jiraan laakiin hadba waxa taagan inay xal u heshaa la rabaa waxa taagan mushkiladda taagan oo weliba dhibka ah oo yani raadka dheer ummadda ku reebaysa waaye midda aan rabno culimmada inay soo hormariyaan oo iyada ay xoogga saaraan dadka waa la dilayaa oo nafti waa la qaadayaa maalkii waa la dhacayaa oo dadkii waa la xoogayaa ama waa la xadayaa ma aha qof jeeb la siibe qof jeebka lacag laga siibe wuxuu ummadda ka dhexeeya ummadda soo urursato ay u dashay in idag loo qada ayaa la xadayaa oo waa tuug ninkan waxbuu xada haddii la yiraahna midaa u taagan oo difaacayo dadka culimada ayadaa nooga raad badan oo nooga taahiir badan haddii ay yihiin shaqaalo dowladeed iyo haddii ay yihiin ciidan dowladeed iyo haddii kuwa banaanka joogaba maanta waxaan isleeyahay war jamaacada masaajidka hal oogo salaada hal oogo muxuu ahay waa wax aad iyo aad u fiican oo khayr badan mar walbana in la isxasuusiyo la isku waxaysan laakiin tanaa ka daranaa isleeh tanaa ka daran diintii dadka laga saarayo diintii oo si xun dadka loogu fasirayo dadkii oo ayagoo soo jeeda herta cad la dilayo oo hal iyo laba ahan boqolaa loo dilayo hantidoodii oo la dhacayo la xoogayo oo la xadayo hayb sooca maanta socdaahay waxaasaa ka mid ah laanna waxaas haybkeenna ka mid ma aha ummadnimadeena kamid dhaqankeenna ka mid ma aha soomaalidii hore hataa xeerar iyo dhaqan ay kala hayd waxaas iyadoonba xataa diinta aan ahayn diintiina waa sii xoojisa dhaqanka soomaaliga ah suuban mar walba waa kan maxuu ahay diinta raadka ku laho ee ka raad qaado culimada waxaan rabnaa dadka waxa maanta lagu sugan yahay duruufta yani mujtamaca soomaali ma aha soomaaliya ku nool keliya ma aha ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayay kelmadahaasi ay wax badan u taraan walaalayaal qiimi badan iyo juhdi badan iyo nafaf badan aad nooga baxay ummadda soomaaliyeed inaan midayno waad ogtihiin xoogaan ku jirin xeelad waa ku jirin rag badan iyo wiilal badan iyo gabdho badan oo Soomaali ah u dhintay
ummadan in la mideeyo oo meel kasta ku nooshahay hal ummad laga dhigo la isku soo celiyo oo qaybsankii isticmaalku ay qiimo wixii laga keeno shalay qiimaha aan ku bixinay waxaan ku bixinay iyo sida hamiga dadka ummaddu ay leedahay garanaysa maanta marka maxay joogtaa iska daa midkii maqnaayo la raadinaye kii aan haynay in la soo doonto maanta waa la qaadanayaa la yiraahdo ayaa maanta taaganahay maanta waxaan taaganahay kii asalka ahay ee shalay aan helnay ee awoowayaashin iyo aabayaashin isu halgameynay noo dhiibeen nooga tageen inteenan maanta nool iyo inta lamida looga tegay in la soo haweysto oo maanta uu yiraahdo ninka aan shalay anaga dhul ku sheeganayno oo leen dhulaad wareer dhulaad naga qabtaa ee daa dhulkeena soo celi aan lahaynay inuu asiga dhulkii kii aan sheeganayn inta gadaal marsaday oo xagga dhigtay inuu kii kala soo doonto maanta ummadda Soomaaliyeed culimo allah maanta horta meeshay taagan tahay asbaabaha oo cadawgaas gaarsiin meeshaas waa badan yihiin laakiin mid kamid ah oo aan dhihi karo waa midka ugu muhiimsan waa midnimo la'aan waay midnimo la'aan xag maamul midnimo la'aan xag maxaan ku iraaday xukun midnimo la'aan xag maxaan ku iraaday fikir midnimo wax badan oo midnimo la'aan maanta khataraha marka meeshaas Soomaalida maanta ku nool meeshaas marayna hal daawo ayaan leenahay daawadaasi waa diinta islaamka sida aan u cunayno oo u kala horumarsanayna mid ugu horumarsano inaan horumarin aan u baahnahay waa midnimada waay midnimada marka la soo qaado dad badan waxay arkaan bas yani Somaliland iyo wax lamida iyo maya ma aha xagga fikirka iyo aqliga iyo dareenka inaan ka midowna waay horta meel kasta haddaad halkan sheekh haddaad halkan ka hadlay muxuu sheegay sheekh Bashiir khayr Allah siiya yani dawlad iyo maamul iyo xukun intaan la aadin horta ummadda waa in la mideeya oo laga mideeya xagga aqliga iyo fikirka iyo dareenka iyo talada iyo aqeedada iyo toosnaanta iyo waa in laga mideeya waa taadanahay gacmo daahira wax daahira markaas xukum aan fasahaadna ka madax banaan wax walbana ka madax banaan dawlad toosan markaas muxuu ay aad u salaanan si kasta sababtu aad tahay anaga sida kale hadda u kala hormarnay hadday ahayd ummadda intaas loo soo diyaariyay kabacdi in dowladnimada loo yimaado maanta dowladnimadii aan joognaa laakiin dowladnimada weli fursadaa ka jirto inaan waxaa sameyno ah ma fursad la-in weli waxaan u taaganahay oon rabnaa dowladnimadii inay ka shaqeyso midii ay ahayd in la soo jirsiiyo oo kabacdina xukunka iyo dowladnimada la dhiso si wax walba nooga dowladnimada noo soo hormartay waataan leeyahay diinta noo ilaaliso laakiin diinta muga ilaalinayso waa inay dhistaa waa inay dhistaa waxa ay tahay ummadan aqliga iyo fikirka iyo dareenka markaan ka midowno yaan talada iyo xukunka iyo dowladnimada iyo maxaan ku iraaday adduunyada wanaagsan oo dhan yaan ayadana aan ka midoobi karnaa marka waxaan leeyahay culimada Soomaaliyeed ha noqdaano muunadii lagu daysanayay dadku ku daysanayeen ummado dhinaca siyaasadda ha noqotee yaa waxay mideeyeen dad kala diin ah oon diin isku lahayn hal caqiide iyo hal diin iyo aanan wada aadayn ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yeelay midnimaduna xoogay keentaa sideedaba midnimada xoog haddaad raadinayso awood haddaad raadinayso waa inaad midnimada haddaadan misaasnayn xoog kastood abuurtahay waa mid artificial oo baraf qorax la dhigay camal biri dhalaalaya waay laakiin xoogga midnimo ku salaysan waa saas dowlad xoog leh oo waxa wanaagsan ummadda leedahay xagto oo haysa oo ammaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa caqiidada iyo maxaan ku raad dareenka iyo waxa ay ka midaysan markay leedahay markaas dawladdu xoog yeelan kartaa haddii dadku ay kala qaybsan yihiin
وقبيل أي كوكلا قيبسيهن وفكر إسلامي أي كوكلا قيبسيهن وحاجة أي كوكلا قيبسيهن دولة دودي حاجة لأن دولة دات كاسم بيكا كوبني حل كلا مركا وين بري يا وحان 4.5 قبيل أو وحا أي ترى أي حكم كي أكو ذلك وأنا تعداد شيء قبيل كوح ووريهم كوكلا قيبسنا هواي كم مديسنين wax oo qaybsanna kuma miday karaan marka hadii laakiin aan sida kale aan u dhigmi lahaynay oo waxa aan ku midaysanahay aan xukun ka dhex jirnaa aan dheelay maybe aad ay suurtagal tahay maanta meesha aan joogno meel ka sarreysa inaan joognayn waxaan noo sii dhimayeen laakiin maanta meel ka fiican inaan joognayn ummaddu marka 4.5 iyo qabiilka way joogay ilaa ay ka hesho meel uga guurto inay ka guurto meeshaas uga guurtana waa in lagu qanciyaa meeshaan aad joogtid raaskan aad degan tahay meel ka fiican oo la dagaa jirto xagga ku taalo oo adduunyo iyo aakhiraba ku san waana taa saasayna u taallaa haddaad tirahayd markaas waa laga yaabaa qofku meesha inuu ka ruqaansado aado laakiin haddii kale meeshiisuu joogaa qof markuu meeshiisa joogana maxaan dhahnaa soomaali haddaan nahay maxaan uga maahmaahi jirnay bartiis yaqaan bar uma kororto war aniga 4 saacadaan leeyahay 4 saacad balyaan meeshaan aan ku haysto war aniga reer hebelaan nahay 4 kursiyaan leenahay iyo maxaan ku raadaay iyo labadan magaciisa meesha aan ku haysano lama anfacdo qabiilku waa qabiil waa jira waa qurun iyo waa magaciisi waa kaas iyo malihin oo baad diintii aba ka hadasho meesha dhigtay meeshii oo diintu dhigtaan oo noo oolino ka soo qaadnay inaan tara isna isugu maada meeshii diintu dhigtay aan dhigno ayaa ra'yiga san oo suban uu yahay mar kale iyo mar kale culimada Soomaaliyeed waqtigooda iyo juhdigooda iyo ciriiriga ay soo daysay meeshaan timiday si ay dadka Soomaaliyeed iyo ummadan masaalixdeeda iyo wanaageeda uga taliso ra'yi ugu yeelato aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa saamaha soo qaadayna ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyaan leenahay inta kadib culimada maanta waxaan kula dardaarmaya waxay tahay baahideena waa badan tahay aan culimada u qabno oo diinta u qabno oo aan u qabno waxa naga dhiman ama naga qaloocan inaan toosino aan rabnaana waa badan yihiin culimada waxaan leeyahay awliyaad priorities ama hortabin ha kala siiso ha la kala hortabiyo ha la kala hormariyo qodaxda falaarta salka nooga taagan aan iska jarno horta aan fariisanne aan degno ummad midaysan aan noqono ummad meel muxuu ah ra'yigeeda iyo taladeeda meel ay taalo aan noqono aanan samaysano tandiim waxaas noogu adeego oon kooxo gaargaara iyo firqooyin iyo qabaa'il iyo waxba aanan u adeegaynin mar kale golihii waa nagu taagan yahay culimmadu waa mahadsan tahay doorkii ay ku lahaayeen in badan oo kamid ah inay soo qaateen dowladdu ag yaallaa nidaamka dowliga ay baarlamaanku yaallaa baarlamaanku shaqo aad iyo aad u fara badan yaa taalo hortibin iyo waxbay kala samaysteen waa baarlamaankan waa la dardaarmaynaa in ay hortibinta ugu horeyso oo ay hirgelinayaan in ay ku daraan muxuu ahaay nidaamkii lagu sameynayay muxuu ahaay golahaas haddii aan yidhaha dalkaani diinta aniga iyo sheekh mukhtaar iyo dhammaanteen dad siyaasiyiinaana siyaasadda iyo siyaasiyiintuna meeshay gadaal u galaan waad garanaysaan laakiin golaha aan rabno maanta raadinayno oon samaynayno iyo maxaan ku rahdaa aan rabno inay noqdaan kuwii ayagu ilaa xaddi u madax bannaanaayo xorriyadda u haystay inay diintii amuuraheeda noo tawaliyaan waa dad aan meel lagu qaybsamo aan ka soo jeedin ama meel lagu qaybsamo aan raad iyo salka aan ku lahayn waayo culimo xulashadooda iyo doorashadooda iyo maxaan ku rahay qaadashadooda waxaan rabnaa laakiin wax kasta markay bilow yihiin cilada laga sheega waa yeelan karaan laakiin maalinta aan istaajino waxaan u baahnaa inaan garab istaagno qaybsanaanta aan yarayno culimadu meel kuma soo dhamaatay sheekhi inta joogi waay maanta joogi waay barrow joogi doonaa birda buu joogi doonaa dee alla yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ee jeclaay dadka inta yimid dad howl soo deeya waaye kii jeclaay sidaasoo kale inuu howl inta usoo deeyo meeshaan yimaadeen suurtageli waysane raalliha ka ahaado beri iyo beri daba imaan doonaa mas-uuliyadda dowladda
guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waa inta wasiirku ka dhawaajiyey wax kasta oo waxaas aan rabno ku hadaaqayno in sheegayna kor u qaadayo inaan sameyno xajka intuu ka sheegay waa weli waa sii badan tahay qofka Soomaaliga ah weli 4,000 jajar waa ku sii badan tahay weli si kasta oo loo dhimi karo wax looga dhimi karo waa ka sii shaqeyn doonaa ujeedadeenu waxay labo in qarashkaas iyo culeyskaasna la dhimo adeega xaajiga uu mugu tago aradii muxuu ahaay xaramkii uu tagana adeega uu helayana in kor loo qaado la hagaajiyo waa laba howlood oo dhib badan waa ogtihiin laakiin weli waxaan aaminsanahay khadamaadka yarka oo laga qaadayo xaajiga haddii si fiican loo adeejiyo in maxaan ku raada ay ka imaanayso waxaa kaloon wasiirka iyo wasaaradda aan ku hambalyeynaya dhismaha cusub ee maxaan ku raada maqarka wasaaradda oo aan rajaynayo sanadka dambe shirka aan sugu imaan doono inaan ku shirno ayada isugu tagno oo aan wasaaradda dhexdeeda intaan fariisano aan ku qabsano muxuu ahay shirkeena haddii aan la yiraahdo wax yar oo dhiman waxaa soo dhamay markaa dadka Soomaaliyeed iska leh mucaawanana laguma siinin حتى تبرعات لا أرورية نرى مثلا حوالك كلا أو نسيء ويلي لكن سكوا بحجرا أو لسوي رجال يرمكان أنت هاللغة فائدته هديتها هي محوها هي وزارة الاسم هذه هديتها هي معتك قلبين تيس هديتها معلمين تيس هجاجين تود يوحوا ذدن حولها سي ورجود ويجرجرين لكن سي الله استعمال جرين مركل فيري سيدي سكرون الله استعمال كره إني جرتو ayaa la isla gartay sidii aan loo isticmaalay waxaasana nooga soo dhaxbaxay waxaan rajaynaynaa sanadaha dambana in siyaabo kale oo ayadana waxtar ummadda dadka iyo diintaba u leh in ayadana loo isticmaali doono haddii alla yiraahdo aad iyo aadaan u hambalyeynaa waa bogaadinaa wasiirka iyo tiimkiisa kooxdiisa wasaaradda shaqo fiican ayaad qabateen waa ku ammaanan tihiin ilaahayna ajri xasanaad haday ka siiyaan leenahay mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkeennina waa noo furan yahay